السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمان مواطنين reer Somaliland meel ay ku sugan yihiinba gudaha iyo dibad miyiga magaalo iyo da'war yihiinba rag iyo dumar waxaad iga gudoontaan hambalyo qaranka Somaliland aan ku hambalyeynaya qarankeena iyo shacbigeenaba guulaha waaweyn u gaadhay walaalayaal halgan dheer kadib maalintii dalkeenu dib u xoreynay waxaanu ka joognaa 4 sannadood 4 sannadood iyo 1 sannadood ka horeeyay oo dawladda aynaan aad isugu calool banaanayn aanu ku midaysnayn maamulka oo aynu ka tirsanaynay maamulkaas sidii loogu talagalay loo midooba inaan loo wadin kabacdi dhibaatooyin badan halgan dheer iyo qax iyo hawlo badan oo adduun maanta waxaanu joognaa ilaahay mahadi inaynu nahay qaran Somaliland oo jira oo adduunku dhammaantii wada arkayo oo inta badan ay la shaqeyso inkastoo aynaan ictiraaf caalami ah wali kursigeena jicida qurumaha ka dhaxaysay ayna fadhiisan waxaanu qabsanay oo ugu horeysa waa nabad dawlad dhisan ciidan dhisan jaamacado dhowr iyo 20 tacliintii oo dhisantay dhaqaale 1 sannadood dawlad xamar la midaysnayn ma jirin shirkado waaweyn oo reer Somaliland oo dhaqaale leh mid yar laba jirtay iyaguna waa sii shaqeeyeen waxaanu abuuray maanta shirkado fara badan oo milyaneer qaarna ay bilyaneer yihiin waa dhaqaalaha dalkeena ka abuurmay markii aynu nabad iyo wada jir iyo iskaashi ku shaqeynay waxaynu dhisanay inagoo la ictiraafsanayn oo banka adduunku lacag inoogu lahayn oo aanay dawladina waxba inaamaahin ama deeq inoo fidin marka laga reebo waxay jimcida qurumaha ka dhaxaysa ugu tala gashay dalalka dhibaataysan ee la yiraahdo gargaarka degdegga ah haddana waxaanu dhisanay maanta dawlad dimuqraadi ah 5 jeer oo doorasho qabatay oo ah qof iyo cod oo waliba aad iyo aad oo ah la arkayo sida loo dooranayo qof waliba xaqiisa ilaashanayo oo ay kuwa yar tahay geeskan aanu deganahay iyo gobolkan deganahay dawlad inta aan leeg fulisa waa laga yaabaa doorashooyin la qabto laakiin waa qaar cid markaa maamulka haysa iyadoo ay qorsheyso oo dhammaystir silskeeda laakiin teena qofka mucaaradka iyo ka dawladda hayaa way u sameeyeen sharciga waana la isku ixtiraamaa intaasoo doorashooyin galay oo ay ka mid tahay madaxweynaha afraad imika tan maanta waa doorashada saddex hore waa guul ay gaadhay Somaliland oo aad iyo aad u qiimo badan ummaduna ku qadarinayso inaguna aynu ku koray oo maanta aanay ahayn to loo baqaayo inay ama khalkhal gudaha ku burburto ama cadu burburiyo طبعا dawladdu waliba dhibaatada walaal jidka dheeranu soo maray wuxuu lahaa hadimadiisa iyo dhibaatooyinkiisa iyo duruufihiisa maalin walba way joogan duruufahaasi in la xaliyo oo laga gudbo waana waxa dawlad loo dhisto ee aroorba umad qof kasto ama dawlad kasta waagi bariyaba ay leedahay beelahadeed marka hawlaha in hor yaala waa bayraho haday mid nabadeed tahay haday tahay mid dhaqaale haday tahay mid siyaasadeed haday tahay mid technology haday tahay mid tacliin waa waxa nolosha halganka socda ee weligaa la jiray ayaan ku jiraa laakiin halkaynu ka soo qaadnay ilaa 60kii ilaa 1990kii waxayna gaaray 1990kii ilaa 2024 dhibaatooyinka inala soo gudboonaaday inta ay inala dagaalamayeen kuwa aynu isku afka ahayn isku diinta isku dhaqanka waliba aanu wax hadalhayn oo ugu weyn tahay inaynay qiraynin inaynu ahaan laba dawladood isu yimid oo iskoodu heshiiyay ay u qabaan ilaa maanta inuu nahay gobollo ka tirsan iyaga waana tasarruf ka qurmayso maanta
boqol iyo dhowr iyo sagaashanka dowladda caalamka ka jira dowladda qura ee aan ogolayn ee inoogu cadow badan waa taxawar ka dhisan waayo maba ogola inaynu nahay qaran jira iyo dowlad jirta maba ogola waa waxyaalaha yaab kale oo xumaan ay koriyaan mooyaan aan wanaag kordhin innagoo waxaasoo dhan soo marray somaliland maanta ilaahay mahadi baynu taaganahay waxaanu maanta joognaa marxaladdii aynu ku dooranaynay madaxweynaha iyo xisbiyada waa hawl culus cadowgeenuna intaa weerar buu inagu haya iyo inaynaan taa hirgelin marxaladdaa waxaanu kaga bixinahaa inagoo dhexda xidhanna u midowna horumarka dalkeenna u midowna doorashadu inay hirgasho u midowna inaynu ilaalino oynu difaacna maalin walba weerar baa lanagu soo qaadaya oo shalay ugu dambeysay si aynaan u helin xorriyadda aynu doonayno iyo dimuqraadiyadda iyo inaynu qarankeenna sidai dastuurkii u dhigaya aanu ku dhisno waxaasoo dhibaato oo jira walaalayaal maanta xisbiyada tartamaya hawshaa u tartamaya codkiina wuu tartamaya laakiin codkiina waxaan doonayaa inuu noqdo mid dalka hore u maraya ee aan dibidaabiye u keenin ama aan licliicin muwaadin codkaagu maanta labuu kala dooranaya wuxuu kala dooranayaa xisbi kulmiye la yidhaahdo oo gaadiid qaad aan ahayn ee weligii iyo allihii joogay somaliland madaxdiisa hoggaankiisa fulintiisa golihiisa dhexe dhammaan inta u badan 90% ay yihiin dad dalka xogaal ah waxay soo mareen oo ay garanayaan halkii laga soo bilaabay ilaa 60kii intooda badan way garanayaan sida wax u qaldameen markii dambe la saxayo wixii dhibaato loo maray way ogeen kolba heerkii la soo maray waxa kale ka wada haayeen foorhoraadka dadkii xorriyadda markii loo dagaalamayay foorhoraadka ka ahaa koow safka hore ku jiray oo ilaa idinka la xoreynayay wixii hawl iyo dagaal iyo dhibaato loo soo marayna ka qayb ahaa waliba qaybta ugu weyn ka qaadanayay waxaa kaloo og yihiin sidii loo dhisay dalka oo burbursan oon jeel lahayn oon biyo lahayn oon lahayn dhakhtar aanu furayn oonu iskuul furayn dadkii ka soo qaaday ee intaana hoggaan foorhoraadka ka ahaa maamulkaa in unug ismo weey kulmiye madaxdiisa iyo murashaxiintiisa kuwii hore u sharaxnaa kuwa imika u sharaxan iyo kuwa u sharaxan doonaba kulmiye wuxuu hayaa sidii somaliland ay hore ugu soo martay 40 sannadood siday dagaalkii xorriyadoonka u soo gashay ugu guuleysatay waxaa kaloo arkaya jidka loo marayo guusha ah in dalku noqdo mid adduunku ictiraafsan yahay oo xorriyadiisa hela xisbiyada tartamaya midna taama haya maanta raadkeeda waayo xisbiyada tartamaya kuwa ugu cadcadi weligood maamul dowladeed may qaban murashaxooda marka laga reebo baarlamaanka ceeb maha waa arag maaha halgeelkii wuu qayb galeen dhibaatadiisa wixii loo soo maray ma oga sheekay ku tahy markaa weli lama shir rabin dagaalkii xoreynta laguma shir rabin oo kuma shir rabna dhismihii qaranka la dhisaayeyna ma joogin oo kuma shir rabna oo qayb kama qaadan oo ma oga waarnimadeedii maanta hawsheeda waa ku layli oo mustaqbalka halku ka bilaabaya intuu baranayo qaabka dowladda ay waqti ku lumaya xorriyadda in qarankani isticmaalada quraan ka dhaxaysa ka mid noqdo oo kursigiisa helo kulmiye ayaa meel walba u garaacay soona dhaweeyay 3 arrimood oo aad ka wada warqabtaan oo markaad ka tihiina waan idin soo xusuusinaya kow kulmiye wuxuu qarka u saaraa in la ictiraafo maalintii koonkan uu tagay ee madaxweynahooda aniga oo la fadhiya oo idina markhaati ka ahaydeen soo dhaweyntii qarannimo lagu soo dhaweeyey inay dowladda xamar cilaaqaadka u geysay dacwadna ay ka furtay African Unionka iyo jimciyadda quruxda xisab kii labaad wuxuu ahaa Kenya kuwa Kenya oo idina awood ogtiin markhaati ka tiina halkii ay la gaadhnay sida Kenya oo kale sida ay kuna kariyo kale waa taa ogeydeenoo inta la dacweeyay
ayay cilaaqaadkana xamar u jirtay yacni waa maxay ninkii aynu inagoo laba dowladda lixdankii u wada tagnay oo leh isagu dowlad ma aha mana noqon kare anun baa ah hadda shuraakaynu ahayn shirkaddeena way kacday dowladdeena ku madan way duntay markay duntana walaa dhan buu dhaqaaqo u shaqo tegey nin waliba halkii xorriyadda ixtimaalka uu ka qaatay buu ku noqon taana waa la diiday ta saddexaad waa MOU-ga MOU wax badan ayaa inaga xidhan oo haddii aynu saxeexno waa ka koobaade waa dowladaha Afrika ugu weyn dhaqaale dad iyo ciidanba waa dowladda aanu shaarka nahay inta la jaarka ku wareegsanaa Afrika oo dhan nin waliba wuxuu campaign ku jiraa inuu Ethiopia wax la qabsado khayraadkeeda iyo baahideeda inaad wax ka qabato la baacimshirayso dhaqaale lahaato wax la wadaagto waa talaabada horse in ku heli karo marka MOU-ga waxa kow ka ah in la helo ictiraaf ay Ethiopia dowladda weyn ee gobolka ay ictiraafto Somaliland inaguna aynu siino marin biyood meel dekad ah oo ciidamadeeda bad ku soo xidhaan dekada barbarana iyaga u dhisan qaybta maanta joogtana inaynu dhammaan hawlgelino laabna aynu u dhisno dhaqaalaha ka soo baxaya waa ka aynu u baahannahay hawlaha degdega aynu kaga baxayno ay ka mid tahay shaqo la'aanta dhalinyarada barnaamij tijaabo ah oo aynu tijaabinay oo ahaa shaqo qaran oo duruufo dhaqaale u joogsaday waxa weeye maanta waynu haddii aynu ictiraafka Ethiopia ka helo oo aynu saxan insha Allah uu dhow yahay muuqdaa waa maqlaysa ra'iisul wasaarahooda maalinta Ethiopia ku hadlayo oo lahaa haddaan saxiix waayo aan wax xitaa carruurteeda saxiix doonto marnaba ka harmayno marka saddexdaa jeerba mid walba sida looga meel dhalinayo iyo kuwa kale la doonayaba kulmiye wadooyinka uu haya xisbiga la tartamayna la wadaaga sidaa darteed muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa oo soo jeedinayaa inay u codeeyaan xisbiga kulmiyana inuu xisbi ahaan soo baxo murashaxooduna madaxweynaha ku soo baxo waa codsigaana waxaan idinku soo waynay wixii aanu soo qabanay iyo wadada noo muuqata baahiyaha saan u arkayno sidoo kale horeynayaan mid waliba haddaad codkaagu haddii aad nasiiso wuxuu mudnaanta koobaad ka dhigayaa ictiraafka wuxuu mudnaanta labaad ka dhigayaa shaqo la'aanta in laga baxo wuxuu mudnaanta saddexaad ka dhigayaa inuu dalku amni noqdo gudihiisa oo qof walba muwaadiniba uu nabad ku seexdo isaga iyo hantiisa uu nabad soo tooso codkaagu wuxuu caawinayaa in dalka uu lahaado ciidan qaran oo adag oo aan cid ku soo gudbin codkaagu wuxuu naga caawinayaa oo uu gaarayaa in caalamku qadarin iyo ixtiraam u yeesho Somaliland wuxuu codkaagu naga caawinayaa in wiilka Somaliland iyo gabadha yar ee Somaliland ay adduunka ku maraan baasaboorkooda iyaga oo xora oo qabkooda wata oo aan cidna gacmo horsanaynin codkaagu dad kulmaysiisa wuxuu tarayaa in dadkeena maanta qofkii xanuunsadaba dhakhtar dibadda loo qaadayo ee kharash aragtay ku baxayo ee aan dadku awoodda u lahayn in uu qofku dawo buuxda oo caalamiga ku helo 90% cudurrada in lagu daweyn karo Somaliland inta waa qorsheedu waa yaala waxaan ka akhri kartaa manifestada xisbigayga muwaadin maanta codkaagu yaanu meel qaldan ka marin oo aanu ka marin nin aan haddii dhibaato timaado xalli karin bal waxaad ka fikirtaa sida dhibaatooyin badan u dhacaan ee aanu soo maray ee xukuumaddan ka dabaalatay xisbiga kulmiye kow waa duufaantii saqar waa ogeydeen dalka wixii reer dhan oo degan la waayo oo inaan quri ka soo haray gurmadkaan ku galana waa ogeydeen shacabka oo dhan ka galaan isku ogaadeen aan isku kaashan COVID-kii oo adduunka ku qayriyay oo xanuun adduunka dib u riday oo wax badan ka bedelay waxaan ka mid noqonay dalalka aad iyo aad ay ugu yartahay dhimashada uu ku sameeyay iyadoo intaasoo taageerada inoo tirinayo inaan dhaqaale lahayn inaan la ictiraafsanayn waxaa la akhriyayo haddana xukuumaddu iyadoo shicibkeeda la tashanaysa adeegsanaysa
sidii aynu uga baxnay ilaahay inuu gargaaray aynu caqligeena u isticmaalay ee markaanu iskaashana uga baxnayna goobjoog baa u ahayd labadii dab ee labadii suuq ugu waaweynaa ganacsiga Hargeysa iyo Jala ka dhacayna waxaa ilaahay mahadiya ilaa rikoorkeeda haysaan xukuumad ahaan habeenkii markuu dhacay aroortii halkii loo jiray civil centerka intaanu soo taageereen dadka ka hadalay inaanu ku niri ilaahay iyo xoogeena iyo maskaxdeena aynu ku dhisnaa cidna bariimayno waayo bari aad been oo dhismaysa halka waxa ilaahay mahadiya maanta in iyadoon cidna inaga caawin wax buuro la sheego aan la inaga caawin qolada xamar joogta lacag ay lahayd jimcada qaranka ka dhaxaysa oo loo qoondeeyay wasaaradda maaliyadda Somaliland caalamku ugu deeqay inay ku dhisaan capacity building oo laba saddex sano isku haysanaa xamar waxa la qaadan maynay ma qaadan ayaa loo soo wareejiyay oo ilaahda waxaan ku wareejinaa Somaliland waa dhaqaale badan ee dibadda naga soo galay baa mishirkeena wax kasta aan iscanaanayno wax kasta la seefno lacagtii ay iyagu dhexdooda laga soo ururiyay ee ku soo deeqeen iyo tii dawladdu ku dartay waxa ilaahay mahadiya dadkii hantida ku lahaa dhismaha ee qof walba in nus dawladdu bixisay sidii loogu dhisay gurigiisii halkiisii waa lacagtii baamishirka iyo dawladdu ay sugayeen iyo dadkii kale ee qaranka bixiyaba ama qurjoog ha ahaadeen ama jaaliyadaha dawladda ha ahaadeen xoolaha bixiyeen oo si wacan loo maamuray maanta suuqa aragteen ee quruxdiisa aragtaan oo aanay dadka qaarkood hoysan Soomaaliland oo saaw xudhisatay ayay u dhisay waa aragnimo waa siyaadi waa looga baxa waxaan isleeyahay anoon lahay wadada tartameysa oo dad tartameysa wax ka sheeg ilaa dadka maanta tartamaya waa aragnimada lahay marka waxaan codsanayaa codkaagu inaad ku hubsato xisbiga kulmiye iyo murashaxiisa oo madaxweyne qaranka oo aniga oo idla hadlaya kulmiye iyo murashaxooda uma doonayo codkiina inuu dana gaar uga faa'iideysto uma doonayo inuu magac ku helo oo madax baan noqday u kordho anigu maanta ana waa joogaa inta binaadam magac ora iyo ama la ixtiraamana waan hayaa qof hore fadhiga uu noo kacaa dadkuna abaalka ma qariyaan laakiin maanta waxaan leenahay marxaladda aynu joogno xisbiga qura ee ka bixi kara hawsha lagu aamini kara waa kulmiye ma aha inaanu samaanayno ma aha inaanu fool jeclaysanayno waa runta alla oo inta ardi soo tagaytahay sidaa daraadeed muwaadin codkaaga maanta u codee nabadgelyada gudaha u codee iska celinta caabinta cadowga u codee ictiraafka u codee shaqo qaran iyo in shaqo loo abuuro u codee in dhaqaale dalkan loo abuuro oo loo soo kordhiyo nuxurka aan maanta ii soo jeediyey waa doorashada iyo xaalkeeda waxaad u codeysaa nabad waxaad u codeysaa inay doorashadu inay horumariso aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa dhammaantiin waa inoo guul iyo Soomaalida horumarta doorasho nabada oo hore inoo qaada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته